aniga wuxuu ugu bilowday muddo hadda laga joogo 8 maalin 14 bisha xuduudda Sweden aan adeeg u doontay. shakiga aan qabo waxaan u maleynayaa dukaanka adeega ee Sweden inaan ka soo qaaday cudurkan habeennimadii Sabtida oo 14 bisha oo 15 axad ahayd oo soo dhacay. calaamadahan isku arka waxaa ka mid ah qandho, lafa xanuun, qadka Skype-ka ee magaalada Oslo waxaa iigu martay Farxaan Cali Xalane oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed dalka Norway ku dhaqan, dadka la yaqaano active-ka ah howlaha siyaasadda iyo howlaha bulshada aad uga dhex muuqda kamid ah. Farxaan ayaa maalmo ka hor bogiisa Facebook ku soo qoray inuu xanuunkii ku dhacay asaga iyo xubno kamid ah qoyskiisa. Farxaan ayaa qadka iigu jiro dhawaan soo gali doona soo kale magaalada Firenze ee dalka Talyaaniga. waxaa asna Skype-ka live-ka Cusmaan Macalin Sabriye oo dalka Norway hore ugu dhaqanaan jiray, haddana ku nool magaaladaas Firenze ama Firenze, labada magac waa la dhahaa. Talyaaniga wuxuu ka mid yahay wadamada uu saameynta ugu xooggan iyo dhimashada ugu badan uu ka geystay xanuunkan. Farxaan, haddaan adiga kusoo hormariyo intaan su'aalaha ugu gelin, waxaan marka hore kugu hambaleynayaa go'aanka geesinimada leh iyo dhiiranaanta aad samaysay oo ah inaad bulshada Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan iyo dalal kale caalamkaba aad la qaybsato dareenkaaga ku aadan xanuunkan, aadna u soo bandhigto inuu ku haleelay adigoo xaaladaada maalin la socodsiinayo iyo karantiilka lagugu sameeyay adiga qoyskaada iyo waxaad kala kulanteen. go'aan runtii geesinimo ah weeye. waxaan rajeynayaa inay albaab u furto dad kale ee Soomaalida ee xanuunkan u haleelay inay soo baxaan oo dadka Soomaaliyeed la qaybsadaan dareenkooda, ayna ka qayb qaataan wacyigelinta iyo digniinaha loo jeedinayo si uusan xanuunka bulshada dhexdeeda ugu sii faafin. intaas kadib Farxaan, oo su'aasha hore jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay, markii ugu horeyso xanuunka qofka uu haleelo ama uu ku dhaco, calaamadaha koowaad uu isku arki karo ama uu ku dareemi karo inuu xanuunkii qaaday maxaa ka mid ah? goormee ayaad adigu go'aansatay inaad dhakhtarka la xiriirtay markaad isku aragtay calaamadaha? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. siciidaada u mahadsan tahay walaalow. cudurkan aniga wuxuu ugu bilowday muddo hadda laga joogo 8 maalin 14 bisha xuduudda Sweden aan adeeg u doontay. shakiga aan qabo waxaan u maleynayaa dukaanka adeega ee Sweden inaan ka soo qaaday cudurkan habeennimadii Sabtida oo 14 bisha oo 15 axad ahayd oo soo dhacay. calaamadahan isku arka waxaa ka mid ah qandho, lafa xanuun, lalabo, madax xanuun siyaada ah, dhabarka oo xanuunaya, jirka dhammo oo xanuunaya, sida adiga xumad qarqariyo. daawooyin kaniini xanuun baabiyaan isticmaalay paracetamol. ilaahay xamdigiis qandhadii waa iga jabi weysay runtii. waa xanuun siyaadahan isku arkay, xanuunkii marba uu sii siyaaday maalin ka dambeysa, ilaa markii dambe aan wacay leega vaktaha dhakhtarka degdega ah. markaan wacay waxay igu dhaheen lambar special ahoo corona number la yidhaahay isiiyeen. isagiaan wacay, baawur bay ii soo direen, waa i baareen, sidaasaa positive-ka liiga helay. Farxaan, waad mahadsan tahay. markaad dhakhtarka u tagteen ama aad u tagtay uu xaqiijiyay inaad xanuunkii uu kugu dhacay, maxaa daawo ah ama talaha uu ku siiyey? sababtoo ah waxaan ognahay dad badan oo guryaha lagu soo celiyey oo dhalinyarada tusaale u badan oo leer guryihiina iska jooga, inta biyana caba, xanuun baabiyana qaata, xaafadiina jooga ilaa xanuunkiina uu iska soo bedelay ama ka soo reysanayo. maxaa talaha uu adigu ku siiyay ama daawo ah? sicid, dhakhaatiirtu markay cudurkan naga heleen waa wicitaan joogto ah. maalin kasta kolka 8 subaxnimo ayna soo wacaan, xaaladana naga wareystaan. waxay nagula taliyeen inaan guriga joogno, aanan xaafadda ka bixin muddo 14 beri ah, oo aan isticmaalno cunto fiican, biyo badan cabno, fitamiin C-ga cuntada laga helo sida qudaarta iyo absinka iyo wixii lamida fruitiska inaan cunno,
inaan xanuun baabiye kaliya isticmaalno maxaa yeelay baalkan daawo ma leh waa virus. waxay nagula taliyeen haddii maaragtay ay xaalad nagu xumaato tusaale ahaan naqaska kale oo nagu dhego inaan si u dhaqsiyaha badan Legafactaha aan wacno. markaas taas nagula taliyeen oo guriga joogin mutaadirta ugu muhiimsan waxa waaye inaan guriga laga bixin oo dadka kale cudurkii aad ka nabadgelisid. dhakhaatiirta ka hadasha xanuunkan waxay leeyihiin wax badan la wadaagaa hargabka caadiga ah ama influenza oo xiliyadan oo kale markay hawadu isbedelayso aad ugu badan wadamadan. adiga intaad aragtay ama aad dareentay xanuunkan muxuu la wadaagaa calaamadaha ayuu la wadaagaa hargabka caadiga oo aan naqaanay hore u naqaanay iyo muxuu kaga duwan yahay goorma ay qofku isdareemi karaa inuu hargab uu ka duwan yahay oo dhakhtarka la xiriira. Saciid hargabka caadiga ah iyo xanuunkan runtii wax farqi weyn oo hadda saas uma dhaxeeyo. hargabka caadiga inta badan dadka wuxuu ku keenaa madax xanuun caajis laakiin kan runtii kuduudshaha cudurka la yiraahdo Soomaaliya hadda ka hor aniga wala dhacay 2005 sano ka hor. cudurkaas wuxuu lahaay dhabar xanuun beer xanuun jir xanuun korka dhan qofka asaga dhan paralyzed noqonaya iyo calaamadihii aan isku arkay. alxamdulillah qofku wuxuu u baahan yahay inuu la xiriiro dhakhtarka ama cudurkan wuxuu u baahan yahay markuu isku arko calaamadahaas aan kuu soo sheegay ee dhabar xanuunka ah madax xanuunka joogtada ah qandhada aan ka degayn xarada 40-39 aan ka degaynin. dabcan calaamadahaas markuu isku arko qofku xafiiska ugu dhow lambarka ugu dhow kamuunaha uu degan yahay markaas ku xiriir tusaalahaan Oslo kamuun oo kale ama Lorisku kamuun aniga aan deganahay kamuunaha ayaa u sameeyay lambar gaar oo lagala xiriiro. markaas aad uga sheekeynaysaa dhaway ku dhageysanayaan dhaqaatiirtu hadalkaada ayayna jawaabta ku habboon ee kaa siinayaan oo ah haddii calaamadii cudurka aad qabto waxay ku leeyihiin already waa inaad isolation gashaa 14 beriyo waa inaad guriga joogtaa gurigaada ka soo bixin. farxan sida adigu bartaada Facebook soo qortay Soomaali badan oo dhalinyaro oo aad taqaanid ayaa xanuunka qabto laakiin ama calaamadihiisa isku aragtay laakiin ka cabsanayso inay dhakhtarka la xiriirto si loogu xaqiijiyo ama ay ama wixii tala ama daawo oo ay mudan yihiin la siiyo. maxaa sababay inay Soomaalidu ka cabsato xanuunka sida adigu aad bartaada Facebook soo qortay ma wacyigelin la'aanba ma aqoon la'aanba mise cabsi kala jirto. Saciid runtii Soomaalidu cudurkan inay ka cabsanayaan in kala garamayo hor dadku inta badan way qabaan. asxaab badan oo aan la xiriiray calaamadaha aniga aan isku arkeen laakiin Oslo kale way helin fursadda aniga aan helay oo baaritaan ayagu ma iisa helin sida xaqiiqda ah oo dad badan la wacay corona numberka Oslo. marka waxaa lagu yiri gurigeena jooga karantiil gala baa lagu dhahay laba baarin I don't know sababtaas. laakiin dad badan oo waxaa jiro ayagana cudurkan ayagoo isku arkay calaamadihii aan doonaynin haddana inay dhakhtarkii la xiriiraan waxay diidayaan in laga soo sheego cudurkii I don't know. haddana dadka guryihii jooga laguma karo runtii ma garanayo sababtaas ayagoo cudurkii qaba haddana magaaladii ay soo aadayaan. ciladaas waa jirtaa dad badan aan kala hadlay guryihiina jooga ku iri anoo fursadan ka faa'iideysanayana waxaan usoo jeedinayaa inay guryahooda joogaan run ahaantii. oo qofka haddii fursad uu heli karo waa inuu isbaaraa cudurku iska ogaada isku dadaalaa asagu oo calaamadahaas markuu isku arko symptoms markuu isku arko waa inuu xarunta caafimaad ugu dhow uu la xiriiraa sida ugu dhaqsiyaha badan ugu macquulsan. farxan aad baad u mahadsan tahay wajigaan ka arki karaa xaaladda aad ku sugan tahay xanuunka ilaahay ku caafiyo. intaan ku faahfaahin hal su'aal baa igu ka dhiman oo ah maxaa tala ah oo dadka Soomaalida ee ku daawanaya aad u soo jeedin lahayd kuwa caafimaadka qaba iyo kuwa xanuunka haleelay maxay sameeyaan ka hortaga maxaa ay sameeyaan si aysan dad kale ugu gudbin ama aysan u sii fidin xanuunka. walaal Saciid talada aan soo jeedinayo waxa waaye Soomaalida cudurkan coronavirus horta dadku yeesan aad uga cabsan oo maaragtay shoog isku ridin laakiin waa inay ka taxadaraan cudurkan sida uga badbaadi lahaayeen.
waa in aad si toos u qaadataa awaamiirta dowladda waddanka aad joogto kaaga imaanaysa. haddaad Soomaaliya joogto awaamiirta dowladda waa inaad dhegaysataa iyo talada ka imaanaysa waaxaha caafimaadka iyo qolada ku shaqada leh. haddaad dibadda joogto sidoo kale amarka lagu siiyey waa inaad qaadataa. tan waxay badbaado u tahay adiga iyo naftaada iyo dadka kaloo dhan. fadlan walaal, mas-uuliyada ku saaran. cudurkan waa laga kacaa, looma dhinto, malakumeeda loo dhintaa, laakiin dadka u dhimanaya waa dad awoodooda ay daciif tahay oo cudurro badan ay awooddii hore uga dileen, sida dadka sokorta qaba, dhiigkarka qaba, asmada qaba, dadkaasoo kale aaday ugu daran tahay. laakiin walaal, fadlan gurigaada joog. haddaad isku aragto calaamadaha cudurka lagu sheegay, fadlan laga bilaabo maalintaas calaamadaha isku aragto 14 maalmood gurigaada joog, kabacdi soo bax. fadlan walaal, adiga haddaad awood leedahay, nin dhalinyaro aad tahay ama gabar dhalinyaro aad tahay oo aad cudurkii iska difaaci karto, waxaad u geynaysaa dad aan iska difaaci karin oo sokor qaba, oo dhiigkar qaba, oo ilaahay ku ron yahay asmo qaba, oo cudurro badan qaba, cudurkaana u dhiman kara. dadkaasaad noloshooda riski gelinaysaa, dadkaasaad halis gelinaysaa. walaal, dadkaas ilaahay uga cabso. mas-uuliyad baa ku saaran. adiga mas-uuliyad isi saar. karantiilka gal, isolationka siday taha u qaado. periodka guriga joog lagu yiri waa inaad joogtaa. health directorate talooyinka ay bixinayaan si toosa u qaado, si toosa u qaado walaal macaan. arrintaa handhayelsan. dad badanoo waxaa jira iyagoo qufic iyo wax isku arka iska dhaadhicinaya cudurkii ma qabtay banaanka aaday. walaal, fadlan, cudurkan calaamadaha oo leeyahay waxaa ka mid a qufac, dhabar xanuun, jir xanuun, madax xanuun, jirka dhumo ku xanuunaya, marmarka qaar dadka shuban uu ku ridaa, marmarka qaar dadka dhuunta xanuunaya. waxaasoo dhan asagaa iskale. fadlan walaal, haddaad isku aragta calaamadahaas, mas-uuliyad qaad oo gurigaada joog, ha ka soo bixin. 14 beri gurigaada joog walaal. 14 beri kabacdi cudurkan dad ma qaadsii kartid adiga, maxaa yeelay cudurka 14 beri kugu dhul dhimanayaa, ama u dhimanaya ama ka badbaadaya insha allahu tacaala. waana aad ka badbaadaysaan idinka ilaahay. arrintan ilaahay uga cabsada. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baad u mahadsan tahay. adiga iyo xaaskaaga iyo qoyskaada waxaan ilaahay uga baryaa inuu xanuunka ka kiciyo. talooyinka iyo warbixinta aad nala qaybsatana ilaahay u ajir kaa siiyo. adiga iyo qoyskaadana dhammaan aad xaaladiina caadigeed kusoo noqotaan mar dhow. dalka Talyaaniga wuxuu